بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan idin salaamay dhamaantiin. Waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago kilibiro ku saabsan Binance Auto Invest. Sidee ayaad u isticmaali kartaa Binance Auto Invest? Hore waxaan soo sameynay investment oo annaga aan sameynayno si gaar ah, taasoo yani manual ah, qofka in asaga uu sameeyo analysis suuqa uu taxliiliyo uu raadiyo coins ka fiican, kuwa fursado fiican laga heli karaa, hadana ku sameeyo investment. Marka waxaan sameynaynaa waa investment laakiin waa automated, yani Binance ayaa u sameynaya si automatic ah. Adigu kaliya waxaad sameynaysaa inaad ku xirto, laakiin analysis-ka suuqa in la taxliiliyo, in lacagta la qaato, la maalgeliyo, inta waxaa sameyn doono Binance. laakiin annaga kaliya waxaan sameyn doonaa inaan ku xirno. Marka let's see. Waa marka aad lahaata account Binance oo verified ah, kadib waad soo loggaraysan doontaa. Waxaad ka geli kartaa meelo badan haddaad doonto si toos ah aanka u imow, ama waxaad imaan kartaa iconkaas asset-ka ah, then waxaad imaanaysaa qaybta hoose waxaad imaanaysaa haddii ay tahay telephone waxaa laga inay ka duwan tahay. Haddii ay tahay telephone waxaad klik siin doontaa meesha ay ku qoran tahay more, kadib waxaad dooran doontaa auto invest. laakiin anigu waxaan ka isticmaalaa waa computer, so marka waxaan imaanayaa halka ay ku qoran tahay asset iconka, kadib waxaan kasii dooran doonaa qaybta dhexe markii aan klik ku siiyo kadib waxaan kasii dooran doonaa auto invest. waxaan kasii dooran doonaa auto invest. waxaan fiirin doonaa su'aalooyin yar oo ku saabsan yani sida markaas loo sameeyo auto invest-ga. Okay, credit plan ayaan kusoo dhifanay. halkan waxaa weeye planskii inoo yaalay waaye qaarkood. waxaan markaan fiirinaynaa qaybtaas hoose, halkaas oo aynu ku rabnaa inaan ka ogaano su'aalo qaar. waan soo koobayaa. waa maxay auto invest? Auto invest wuxuu kuu ogolaanayaa in maalgelintaada kriptada aad ka dhigto mid automatic ah. yani waxaana la isticmaalaa istaraatiijiyad loo yaqaano DCA ama dollar cost average ay leedahay. waxaad dooran kartaa marka lacagta kriptada aad rabto, weliba adigu u iibsanaya regular basis, yani daily, weekly, monthly oo kale. markii aad doorato kadib intaa marka wixii ka dambeeya Binance ayaa si automatic ah kugu sameyn doono maalgelintaada. intaas aad leeyahay ugu muhiimsan tahay. hadda marka aan u laabano, halka marka waxaa ku qoran productigii dhammaan aan rabnay inaan maalgashano. hadda marka waxaan sameynaynaa inaan maalgelino single coin, hal coin kaliya. marna waxaan sameyn karnaa portfolio, waan sameyn karnaa. halka waxaa ku qoran historical ROI, lacagtan aad rabto inaad maalgashato si automatic weliba taariikh ahaan maxay soo saartay. waxaa u horeeya Bitcoin ama BTC. halkan waa time frame-kii. haddii aad u fiiriso 5 sano muxuu soo saaray, 3 sano muxuu soo saaray, 1 year muxuu soo saaray, 6 months, 3 months, 7 days. ma arkaysaa? yani waa historical ROI, taariikh ahaan lacagtan ama coinka anigu aan rabo inaan maalgashado muxuu soo saaray. so marka inta badan markay tahay auto invest caan ku in la qaato BTC ama sometimes Ethereum la qaadan karaa. dhammaan waad qaadan kartaa, laakiin waxaa la fiirinayaa lacagaha markaas inta badan sameyn kara ROI-ga fara badan. marka haddii aynu qaadano waxaan leenahay create a plan. waxaad qori kartaa planka magaciisa
ama waa optional iska dayin kartaa waxaad qori kartaa amountiga aad ka rabto waxaan u yar 0.1 ayaa u yar card waad ku bixin kartaa haddii aad doontana waxaad isticmaali kartaa wallets kala duwan ee adigu aad leedahay haddii kugu jirto fundinka ama spot walletka intaba waxaad dooran kartaa frequency aad ka rabto lacagtaas inay kugu soo dhacdo yani inuu ku maalgeliyo Binance ma hal jeer ma 1 hour ma 4 hour ma 8 hours yani hadba intii aad rabto okay okay كنا قوانا سجلنا انت مركز بس كدب اذا نحن ما عندك لا دهضو نيكستي وقريه دونا واحد اورت اوتو انفستي واحد markii iibsan doontaa spot wallet kaada intaad iibsan doonto waa intaas lacag ah wuxuu kala ku siinayaa yani coin aad rabto dan waxaad dhigi doontaa next your plan is calculated successfully haddii aad rabto inaad aragto planka aad abuuratay waxaad ku dhifan kartaa view very simple waxaad ku dhifan kartaa view waxaad arkaysaa planiska aad soo abuuratay okay kaas marka haddii aad rabto inaad sameyso auto invest adigoo markaas isticmaalaya single token ama hal token sidoo kale waxaad ka dhigan kartaa inaad isticmaasho portfolios waxaad isticmaali kartaa coins kala duwan okay markii aanu isticmaalno portfolio yani waxaad arkaysaa waxaad isticmaali kartaa tokens aad u fara inta aad rabto for example aan isticmaalno dadkan oo kale aan dhahno create a plan halkaas marka hadda waxaa inoogu jira inoo dooran bitcoin iyo ethereum bnb midka aad rabto iska tiri kartaa for example bnb kale ma rabno waxaan leenahay iga saar dhammaan waa yani waad iska saari kartaa xrb iga reeb tr iga reeb dot ka reeb kuwa horaa loo maalgeliyey isla marka adigu waxaad samayn kartaa waad iska soo reebi kartaa oo dhanba browser udire browser okay ما مستوى مملي اوكي وما قبت تصوص عنها اوكي markaad waxaad soo dooratay qaybtan portfolio planka ah portfolio plan waa isla investmentkii oo automaticka ahaa ama automaticta ahaa laakiin halka marka waxaad isugu keeni kartaa dhowr tokens meme coins iyo tokens yani sidoo kale waxaad isdhexgelin kartaa coins fara badan okay marka waxaan sameynaynaa waxaan leenahay create a plan هذا marka waxa inoo dooran allocation markasta waxa laga rabaa inay ahaato 100% waxa marka inoo dooran coins fara badan marka midka aad rabto ka saari kartaa waxa leedahay iga saar halka ku dhif minuska waa iga bixi ama iga jar dot jar avx bitcoin cash jar xrb okay hadda waxa soo hartay afar coin ay soo saartay now okay marka waa bitcoin iyo ethereum bnb iyo solana wuxuuna siiyey ba 25 okay waad ka sii jari kartaa haddii aad rabto ku soo darsatana waxaad dhigi kartaa select a coin kadib halkaa ka soo dooro marka aad rabto ka soo dooran kartaa okay doorashada kadib waxaad dooranaysaa lacagta aad rabto inaad gashato
inta markaa aad doonto. Okay, mar lacagta aad gasho kadib mar walba waxaad dooranaysaa payment orderkaada. waxaad ka bixin kartaa spot walletkaada ama phone walletkaada oo kale. waxaad kaloo dooranaysaa inta waa la mid qaybta hore oo kale, yacni interval aad rabto. interval waxaa u fiican mar walba inaad doorato monthly. markii aad samaynayso auto invest, monthly is much better. dan waxaad leedahay next, waa stepka hore oo kale. Okay, so marka labada qaab waa isku mid, laakiin waxay ku kala duwanaayeen kaliya. midna wuxuu ahaa single token, midna waxaanu ku sameynaynay portfolio, yani inaan maalgelino dhowr shay. waxay ka siman yihiin labadaba inay yihiin auto invest. haddii marka kale aad samayso kaliya inta ka haray marka finance ayaa wuxuu u samayn doonaa si automatic ah. markii la gaaro bishii ama jadwalkaad u samayso kale, si automatic wuxuu ku maalgelinaa inta lacag aad haddii aad gashato kale 10 USDT 20 USDT iyo inta coin aad gashato kale, markaas wuxuu kugu sameynaa investment. haddii aad rabto plankaada waxaad ku samayn kartaa edit, waxaad ka bedeli kartaa, waad cancel kartaa normally, laakiin waa plan ku shaqayn doono misana ku abuuri doono lacag fara badan haddii markaa aad samaysato long term investment. inta badan investments waxay ku fiican yihiin in laga dhigo kuwa ah long term. haddii aanu ka dhigno short term waxaa aad ugu fiican waa tradingka. marka haddii aad tahay maalgashade raba short term, waxaa kugu habboon inaad aado spot tradingka. laakiin haddii aad doonayso investment, waa inaad ku talagashaa short term. sidoo kale investmentigu inta badan uma baahna khibrad fara badan. qof markuu yahay investor ama maalgashade, waxaad u malaysaa wuxuu heli karaa options kala duwan oo fara badan, kaasoo uu ku samaysan karo crypto investment asagoo markaas even aan lahayn cilmi fara badan. because of now haddii aad raacdo tutorialkan step by step, wuxuu kuu suuragelinayaa inaad samaysato maalgashi adigoo markaas u samaysanaya qaab automate ah. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doonto casharka kan. mahadsantihiin.